كل إساك ويتهي صبح حديد بشنا تهي سقال بشال لبي طبنا ديسمبر ساك هلك waxaanu ka soo saareynaa baaq la naga sugay bulshadu naga sugaysay gaar ahaan beelaha makaahil annagoo hore ugu baaqnay in la qaban doono shir makaahil aanan sheegin goobta waxaan shaacinaynaa waa intaawi shirka yaan u cadaynaynaa beelaha makaahil meel kasta ay joogaan muddada la qabanayo goobta lagu qabanayo markii in badan la lafaguray gudida farsamadu in badan ay soo xaalado badan ay dhaceen sidii duufaanadii dib u dhacyo badan yimaadeen waxay soo gabagabootay maalin dhaweyd waxa la go'aamiyay in shirkaasi qabsoomo bisha 15 July waa goobtuna xawi goob kamida degmada Boorama gaar ahaan galbeedka Boorama in lagu qaban doono waxaan sheegaynaa saadarteed dadka beelaha makaahil meel kasta ay joogaan cid kasta oo danaynays fikir iyo muruq iyo maal waxay ku darsanayso inuu shirku qabsoomi doono waqtiga aan idin sheegay halkan waxaan ku joognaa duqaydii guddigii makaahil ee arrimihiisa waxaanan u shirannaa aan suganayna shirkii la sugayay inaan maanta sheegno oo nilaahno waqtigaasuu qabsoomayaa wuxuu qabsoomayaa bisha Juulaay 17 sidii horeba loo sheegay waxaa lagu qabanayaa Boorama meel galbeed ka xigta meeshii la isla garto oo ka dheeray ka sii dheeray dadka waxa loo sheegayaa la ilaaminayaa cidii danaynaysa ama dibadda ha joogto ama dalka ha joogto ama meel kale ha joogto ama dawladda jaarkeedaba ha joogto inay timaado yaa loo sheegayaa oo la ilaaminayaa intaasaan isugu nimid hal la yimaado shirka ra'yi iyo waxay looga baahan yahay kolkaas laga wada hadlay shirkaasaan doonaynaa in la yimaado odayaashu sheegayaan in la yimaado bisha 17 marka labaad waxaan ka cadaynaynaa inuu dhacayo shirweyne gelin soo socday laga soo arrimiyay laga soo wada hadlay shirweynahaas ay qabsanayaan beelaha makaahil kaasoo mid dad lagu waxyeelaynaya aan ahayn mid cid loogu shirayaan aan ahayn ay danaheega kaga hadlayso danaheega gaarka ay kaga hadlayso cid wax lagu waxyeelaynaya aanay jirin cid wax loogu dhimayaan aanay jirin dawladda dad kale midna wax looguma dhimayo danahooga ayay kaga hadlayaan beelaha makaahil inta markaan ka gudbo fariintaan halka ka direynaa waxa weeye waqtiga la soo sheegay dawladaha jaarka kuwa dibadda jooga dhammaan makaahilka ku nool waxaan ogeysiinaynaa inuu ka soo qayb galo shirka kaasoo midan hore iskugu ogeyn uu yahay dhammaantoodba inta markaan ka gudbo shirku waa shir nabadeed waa shir laga tashanaya danaha beelaha makaahil waxa beel ku tashata oo wanaagsan hadduu ka soo baxo dadka kalena uu anfaca sidaa darteed cidna mid lagu duraya maaha danaha iyaga ayaan kaga hadlaynaa cid kastaaba ka joogto waxaan leenahay waxaan ku baaqaynaa in la qaban doono shir makaahil oo beelaha makaahil qaban doonaan oo ay kaga tashanayaan aayahooda dhaqameed iyo aayahooga siyaasadeed intaba iyadoo aanan cidna wax ugu dhimayn haddii aan la idhaahdo anaan ugu baaqayno inuu makaahil ka wada tashado hadduu odaye leeyahay hadduu siyaasadaha kale leeyahay hadduu dibajoog yahay hadduu gobollada kala joogo in la isugu yimaado dhalinyariya waayeelba shir makaahil la isugu yimaado aayihiisana ka tashado
haddii aan la yidhaahdo bishaa odayaashu soo sheegeen 15 la isku yimaado ka dibadda jooga ka hadirada gobolada kale dawladaha la jooga cid waliba timaada ka buurtiya ka bankiya ka banaanka joogba yimaadaan aayaha makaahil dhaqankiisa iyo siyaasadiisa uu ka tashado isagoo u dharag iyo dumar dhalinyar iyo waayeen ciidu ka xaraayayna ma leena hadduu wasiirku imanaya yimaado hadduu maayirku imanaya yimaado haddii alla cidii aan doono ku casuumi karnaa uguna yeedhaynaa inay ka soo qayb galaan aanu ogolahay haddii ilaahay dhaado ciidu ka xaraan yahayba male insha Allah wixii ama goobta ama goorta ama dhaqaalaha lagu qaban doonana waxaan u saari doonaa guddi farsamo oo soo qaban qaabin doonta oo sidii ugu haboon waxana u sheegta waxana u soo dhaweysa waxana u qaban qaabisa dhaqaale iyo dhaqan iyo siyaasad dhan walbana u tuurta hawsheeda salka ka soo wada arinta ku baaqaynaa waata insha Allah cidiba joogtay cid guda joogta cidba joogtay cid bari joogta cid ban joogtay cid buur joogtana waan ugu yeedhaynaa makaahil dhamaantii inuu isugu yimaado